ما تسنتهين وإن كوسو لابتي صبعان بلنتين معايا نين للدورتي إيه نين دنتي بلا ما أركز وما هذا ميقات جروسي أركتين waxaa maanta loo dabaaldegayay maalinta xurriyadda ay heshay dalkani Kenya. xildhibaanka galbeedka Wajeer Yuusuf Faarax Muliro ayaa isaguna la dabaaldegay shacabkiisa maalintan oo aad ugu weyn muwaadiniinta dalkani Kenya. Munaasabadda dabaaldega ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Giriftu ee dhacda galbeedka Wajeer. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qaybgaleen saraakiisha dawladda countiga iyo mid sare iyo dhammaan shacabka magaalada Giriftu. xildhibaanka ayaa u mahadceliyay shacabkii imaaday madashan dabaaldega ah isagoo sidoo kale sheecay in goordhow uu keeni doono mashruucyo fara badan. فيسكان وحوا كقبنينا أنا CDF جليا إيه جافنا لك أشياء لبضبة لعقتي وان رادينا بجت كان دمبا مشروع أزواج لنا إن شاء الله وحصوها هاي ستيمر كينا وحوك حرية وجر ستيمر كوجر أنا كوي بيالك واتقني وعن لفريسني منستاغ وزيرك oo steamerka ku shaqale balama badan anaga la qaaday waqtigii soonkii inay dhamaata oo la geeyay generator cusub ayay ahayd generatorkii la keenay way shaqeyn waayeen hadda waa ku laabanay waxay dhaheen generator cusub aan keenayna haddii aan dhahna generator cusub aan u rabnaa Giriftu dawladda waxay mashruuc lacag badan ay gelisay Giriftu iyo Wajeer dhaxdo way ku adag tahay horta sida uu inayba la waaya Wajeer bateeda la hagaajin way moogi in la bedelo horta way adag tahay laakiin haddii tii Wajeer xal laga gaari way insha Allah taala inaan Girif gooni ahaan steamer ugu istaaga ballanteeda waa qaada insha Allah taala bii shaqadeeda waa county government soma anigana bii kala waa keeno oo national government insha Allah taala national government waa in kala hadlaynaa وانا in la qabanayna daha mashruuc ayaa loo bilaabaa mashruucaasoo aniga iga imaaday insha Allah taala kaligiina ma tihin de Wajeer West waa weyn soma gacanteydana waa yarta gacan ilaaha laga dhirgaa haday in wada gaarin hadirfana ninkii gaarta oo sabra. xildhibaan Yuusuf Faarax Muliro ayaa balan qaaday inuu daahfuri doono xarunta hal-abuurka dijitaalka ah taasoo ah goob waxbarasho dhalinyaro tiro badan ay ka faa'iideysan doonaan. Digital Innovation Center waxa la lahaa meel ay dhalinyarada ay ku bartaan computer iyo wixii la xisaabsan adduunka maanta la joogo waa la bedelmay waqtigii la israadinayo qofka intaas kaca aad ku raadinay qofka asgaar ku soo raacay Nairobi ku soo raadinay wala soo dhaaf telefoon ajira TV ajira internet ajira social media ajira adigoo halkan joogo as Nairobi ka shaqeyn kartaa osna ku shaqeyn digital innovation hub oo Wajeer West ay leedahay oo Giriftu GPTC lagu kaba oo mashruucyaalka ah waa bilaaba insha Allah taala qorsheedan ku jira waana inkiga taga haduu alla yiraahdo taasna dhalinyarada ay faa'iido tahay waxyaalo badan ay ka baranayeen waana bilaash ay noqon insha Allah ina bilaash ay wax ku bartaan dhalinyarada ayaan rabaa. waxa uu digniin adag u faray dadka abuurayo deegaano cusub in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo afjaraan. Bariyahan kulli warkeeda aad socday degmayaal isku haysta degmo badan oo la abuuraya waraan iswarsana reer Wajeer West daaro hore waa buuqaysan abaara nagu dhacday waa baraka aan gaaraysa aad ka dadka nagala hadalaas leedan xoolihiin is daba socotiin inta isku dhaqaalay rabtiin meesha lagu dhaqaaleynay sheegaba qof walba hadaa stuulo aas raay walba markay isdigaash ama ay isgafta ay dhaadaan waa ka guureyna intaan tagayna ama ay dhacda dad kale oo dad degan ay ku kala soo kor tagaan
سو مقوي محمد هذا أربجهن إلى إيو قرفتو نحضر ما يقدق مولاقا قاعد وسدح محلوها قاعد محصابه بي انت لا قد بي قرفتو بي وقيلنا عافي ما زو قيلنا هيسي وحزو قيلنا هيسي مشروع عيال إن لين كان مقال العصب كل كلا جارا إيش يا قبل إذا كان مشروع أزلاق دبقينا وين نروح نسوشك ريو جربس أرنتانا وإن لقى الله dadka dejinaya tuulooyinka inaas dhaaftiin waxaan rabaa in la hadlo NGOs tuulo cusub kasta dabafakanayo lacagaha siinay inay joojiyaan hada lacagaha dad inay siiyaan ay rabaan girifay meedan lacagtaas iyo dad u dhib qaba jire haday rabaan arbajahna aadeen haday rabaan aadan cawaalaha aadeen laakiin inaas kacda tuulo yaro maanta la asaaso shan qof as qof ku soo heshiiyay lacag ku siis taas waxay si abuuri inaas qof walba magaalada ka guuro mana soconaysa taas anigana diyaar u mihi waxaan bariyaa ama aan embaryaa dhulka horta idinka iskale aniga hadda maanta 5 sano MBN ay 5 dambe ilaa Allah waclan haddaan soo gal haddana 5 sano ugu darsanaa laakiin waxa waaye dadka aan dhulka ka tagaynin oo dhulka joogo waa idinka dadka xoolaha la jira oo xoolahooda inay daaqaan la rabana waa idinka xoolihiina meeshii ku daaqi lahaayeen aska haleynina Wasco walituma team ya kuangalia mambo ya safei na tuliagana na walisema waxay dhaheen anaka imaadayna arinta biyaha meel baa la saaray dhawaan insha Allah taala hadda nafaas baan u haynaa revolving fund waxaan ka hadlayaa revolving fund kambaniyalka la qoranayo bir hore meeshan oo dadka lacagaha sugayeen ayakan wax yar in ka hadlaan rabaa arinta iyada waa diyaar ninkis ilaahay u nasiibi oo kuwan u soo horeeyo galo waa diyaar markii baadan waa heliseen maxaa soo heeray ninki way insha Allah taala wasiirkan isarayni lacagta markii la celiyo process aan u hagaajinay ninkii wayna waa hela ninkii ilaahay aad siina waaba ka bilaaba idina waa saas in soo gaateen arintii oo revolving fund ugu dambeyn wax garadka iyo odayaasha ka soo qayb galeen munaasabadan dabaaldega ah ayaa u mahad celiyeen xildhibaan Yuusuf Faarax Muliro maadaama uu wado dadaalo badan aan filayaa meeshan waxaan isku imaanay in aan wixii jira u soo sheegna ninka la yiraahdo Yuusuf Maxamed Faarax ama Muliro la yiraahdo waxa waaye mashruucii Wajeer West ma MP kalan hayna annagoo ku wada faraxsan waxaan jecelnahay in sidii aad hadda u soo dhaweyseen oo indhihiisa ama indhahayna aad u buuxiseen in aad garabgal u noqotaan oo cadaalad u noqotaan oo daacad u noqotaan 5 sano sidii aad maamul cadaalad aad ku keeni lahay asagana tolkiisii dhulkiisii aad dadaal ugu subiya diyaar u yahay diyaar muutiin inaad garab u noqotaan oo horkacdaan waa mahadsantiin khayr Allah idin siiya kula aqaana nabadgelyada inaan ku dadaalno on aad iyo aad labada gacanood aan ku qabsano on ku xijina diyaar soo manihin diyaar muutiin inta diyaar oo gacanta kor u taagan nabadgelyada usalama inadumu tutangeneze watu ya girifto muko tayari shukran waa mahadsantiin waa ku mahadsantahay magayna la yiraahdo mashruuca girifas ka bilaabana anaka farxan la joog weynay waad arkaysaa caruurta iyo bilcaanta saaka salaada dalay mahdib saas awadeed anaga waa kugu faraxsanahay waana ku jecelnahay khayr Allah nasiiyo waa mahadsantahay waa tiribka saddexaad oo markaad noo imaaday wax qabadkaadan waa aragnay haddana wixii noo wadaadan baa noo sheega wixii horna ugu qabatay oo caruurta iskuulka iyo nidaamka iskuul waa helnay cadaalad u hagaajisay sida u maamushi waa ku faraxsanahay maanta waa arkaysaa si lagu faraxsan waxaan joogi hadhaadho cadibool shandarwa hadda subaxan waxaan ku imaado wadada hadhaadho ilaa ay meeshan barwaaqada taala lama fiir lama waa wax wali indho anaga aan arkin way saaki waxa i gashay ama meelahan dug yar ka soobsataa wixii dhul guba asraadisa dhulka daas cadaada dhibkii shalay nahay nin walba soo xasuusto gacantayna ay qaban la cawsi ka baxay bolodiya dhaxdooda gacantayna ay qaban la mimi nasema wati wasishome ardi tafadhalini mnamaagiza amba chiefs kila chief achunge jurisdiction yake na ajue nani anaishi na ajue kwamba ni nani ndio anachoma ardhi amaan nagu filan annaka reer Wajeer West iyo boor dhaxdayna ayaas keenay waad ku mahadsan yahay
ammaanka ka jira Wajeer West iyo Isiolo North waa mid aan soo marin muddo 30 sano ah. Mheshimiwa, congratulations.